وهاجا قولي برنامج كنا جوبجوك دون دمانتا يا داون إنسان بل سمركان دنكا يماملكا قلمدو وزارة قرشين حكومة فدرالك يا تنرمها جدها ماملكا قلمدو يا شيء إنه يكون دالي دونان هرمرينتا أديجدا أساسية ديجانكا هذا كان يا إيمان مركي وزارة هاس أي كورميرا كتجين qaybo kamid ah xaafadaha degmada Godin Labe oo sanad ka hor laga hirgeliyay leerarka cadceeda ku shaqeeya mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo qorsheynta Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee Galmudug ayaa kormeer waxa ay ku tageen degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud mas'uuliyiintan ayaa waxa ay kulan xog wareys ah la qaateen maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kaasi oo ku aadanaa inay wax ka ogaadaan isbeddelka iyo faa'iidooyinka ay dadka deegaankani ka heleen leerarka cadceeda ku shaqeeya oo sanad ka hor laga hirgeliyay degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud intaasi kadib mas'uuliyiinta ayaa xilliga habeenkii waxa ay socod ku mareen wadada dheer ee degmada Godin Labe iyagoona indhayn ku sameynayay sida ay xilliga habeenkii u shaqeeyaan leerarka cadceeda ku shaqeeya Cabdinuur Cali Xaashi oo ah kusimaha gudoomiyaha degmada Godin Labe ayaa waxa uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta leerarka cadceeda ku shaqeeya ee sanad ka hor laga hirgeliyay degmada Godin Labe إلهي ومهد إسكاله إن شاء الله ونعاو والله يركز هذا هوس تاجنا أبريل تبان كذي لو كنت توين ضبضة بعد كده تاجي كل هالسنة كسوة توم ملاني عاون أنت عد مش شاغر وحنا علينا يا إن شاء الله دولة قبلات الجلم والوسارة دربها جودها يعود كسوة غيب كقاعدتي وحنا علينا ما هاد كدب waxaan usanaynaa waad aragteen caawa waa soo marteen waa shidan yahay waana xafidanay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug Cumar Maxamed Deeriye Cumar Guureeye iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Galmudug Asad Usmaan Guuleed ayaa dadka Godin Labe waxa uga mahad celiyeen sida ay u ilaashadeen leerarka cadceeda ku shaqeeya ee degmadan laga hirgeliyay salaan kadib caawa farxad bay noo tahay inaanu la qaybsano farxadda iyo maxaayeen controlka leerarka cadceeda ku shaqeeya ee degmada Godin Labe degmada Godin Labena shacabkeeda iyo maamulkeedaba waxaan uga mahad celinaynaa sida caawi noo muuqato sida ay u xafiteen leerarka sida ay maartay maxaayeen u daryeeleen oo dhammaan caawa intaan aragno ay shaqeynayaan iyo bulshooyinka qaybi aan la kulanay oo ayana nooga warbixiyay sidii ay maxaayeen ugu diyaar garoobeen dayactirka qalabkan iyo xafidaadiisa uguna heelayeen ilaa iyo hadda inay maartay maxaayeen arintan ay leerarkan ayagu daryeeshaan sidaad u jeedaanba sanad ka hor ayaa waxa laga horgeliyay barnaamijka solar systemka ballantii ay kula ballantay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda arrimaha gudaha qaranka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka Galmudug iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dawlad goboleedka Galmudug ballantii way oofiyeen sidaad u jeedaan leerarkii loogu talagalay oo xilligaas laga taagay degmada Godin Labe ilaa iyo haatan wuu shaqeynayaa wuu bad qabaa waa nadiif waxaan rajaynaynaa ka wasaarad ahaan annagoo iska kaashanayno annaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta qarankaba in aan intaan iyo in ka badanba aynu raadin doono haddii Allah awood la yiraahdo dhanka kale mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo qorsheynta Soomaaliya ayaa sheegay inay markasta u taagan yihiin ka wasaaradda ahaan daboolista baahiyaha bulshada ee asaasiga maanta joognaa degmada Godin Labe sida arkaysan calaamadda iyo argada naga dambaysa xilligan waan alxamdulillah ammaan aan ku joognaa soolarradii iyo wixii aan u nimid si fiican u shaqeynayaan alxamdulillah waxaan rajaynayaa inay sidoo macnaha lagu ilaalin doono sida mataqaanaa aan dadka degmada ay noo sheegeen inay ka mid yihiin deegaanka soolarku ayna ku faraxsan yihiin ayna codsanayaan in loo badiyo dowladda Soomaaliya waxa ay ka go'aan mar kastaba degmo kasta iyo tuulo kastaba in mashaariicda la gaarsiiyo saasa waxay tahay federaalkaba in serviceka deegaanka u gaaro ma ahan mataqaanaa in hal degmo kaliya ama mataqaanaa caasimadda ama hal gobol kaliya lagu hayo Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta Goobjoog